الحمد لله رب العالمين وبين استعين على أمور الدنيا والدين. أولاً مرة هراء وحن بقادين يا صدق حسب القرن كوميشن الدورشوين كقرن كوادي فرسمهان يدنا إنه وحش صارين هذا اللي ما الدورشوين ك ولا بتشوف سومالي الآن في حكومات ضا ولحدا هي ذو قرن ككوب الناس يود الشرقة أيوة الشقيين من الدورشون إنه وقف صنطه مسؤولية وزارات بيرونتي قاعدين collective responsibility وحلا يلعبوا وقع معنا ونكتب بقادين إنه وحنا لنا ود الشركة iyo shaqaynta waa in halka ka sii wada anoo khilaafaadkii xabiis inuu noqon jiray bini ilaahay taala dib inuu soo noqon taas mid weey talabaad nimanka musharaxiinta ah ee xisabta ay soo dhigi doonaan ay sharaxayaan waxa loo baahan yahay inay noqdaan dad amaanadeedii leh iyo aqoonteedii oo ehel taqwa ah oo mas'uuliyadaasi ay xisabtu si mug leh ay u eegaan way qof u miyo oo aan aqoon lahayn hadii uu goladeegan yimaado waxa la yiraahdo wuxuu tari karaa ma jirto ummadda baanu lu goynayaa waxa loo baahan yahay qofka shaqada waxa uu helaa qofkii wax ka qaban kara goobta uu tagayo taa ku dardaarmaya talabaad waxa jira niman musharaxiin sheegay oo maayar wadanka ka ah waxaan leeyahay horta Soomaalidu waxay tiraahdaa handageel qof waliba wixii uu gashado ayuu mukamala wixii dalkii dadka uu qabateen ayuu horta nin walba hor yaala ilaahay cimriga uu barakeeyay injineer Maxamed Xaashi Cilmi 25 sanadood ka hor buu maayar diisa ka ahaa waa rubuc qarni sidoo ka horeysay weey 22 bilood oo qura buu joogay labada sano xataa uma buuxin haddana raadkiisii laaya maanta uu muuqdaa tiyo inankii maalinta dhashay uu maanta sharaxan yahay ayaa haddana Maxamed Xaashi lama jeertaa wax qabadkiisii ninkii ummadda wuxuu la hor iman karo la hor imanayo diyaar baa lagu yeeraa sharaxdo hal baa saddex shardiyaho aqliga caadiga iyo cadaaladda iyo xirka doorashooyinka uu dhigaya in xilka maayarnimo uu wareejiyo ninka musharaxay taasa cadaaladda iyo aqliga caadiga iyo xirka doorashooyinka ay dhigayaan oo isagoo madax banaan uu tartamo ninkii hunguri daba ku jira ummadana wixii kirdhiday oo gashaday uu leeyahay ee u yaala meesha uu soo hordhigo marka ummadda qanaacadaas wixii loo qabtay markay ummaddu qiimayso ay codkeeda mar labaad siin doontaa ama ay oran doontaa magaalada dhinaca ka gal taasina waa taaway qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan su'aasha shirkii dhow Samareeb runtii shirkaas waa uu burburay inuu ognahay waxaana xaqiiqa oo aan markaan laga warwareegin hadalka halkiisa loogu tago hubaala in madaxweyne farmaajo aanu marnaba diyaar u ahayn meeshaasi wax wanaag uu ka dhasho sababtu waxa weeye gobolkii Gedo ee uu ka soo jeeday buu leeyahay musharaxiintiisii aniga qoranaya oo Jubaland State kamid maaha dawlad federaalna wuxuu leeyahay madax baan u ahay marka labadaas isma qabanayaan marka beesha caalamka uu tusay uu madaxa tusay baan oran karaa ee marnaba inuu heshiis halka laga gaaro diyaar uma ahayn min kala dawlad federaal baan madax u ahay haddana gobolkayga aanu ba qoranaya mudanayaashii ka soo baxayay oo sida Hirshabelle looga soo qorayo aan ogolayn in looga soo qoro Jubaland ee wax weyn taasina waa cadaalad darro uu bariirayo weeye marka halka wax ka soo baxayo rijo oo imka ee muuqda ilaa inta uu tanaasuleyniga madaxweynaha oo si siman ugu adeegayo shanta maamul goboleed ee uu madaxda u yahay waxa rijo halka ka soo muuqda ma jiro kulay intaas ma daan ku soo